ku soo dhowaada kaydka tiyub waxaan idiin soo gudbinaynaa waxyaabo ku saabsan dalalka adduunka. waxaan u kala qaybanay 2 qayb. isbuucan waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybta ugu horreysa. waxaan ku bilaabaynaa dalka Afghanistan. dalkan waa dalka ugu horreeya xagga soo saaridda daroogada opiumka loo yaqaano. 90% opiumka dunida laga isticmaalo waxaa laga keenay dalkan. albania waa dalka ugu badan dhufaysyada militariga. 5 kilomitir oo square waxaa ku yaala dhufays ama waxay u dhigantaa 18 qof bahal dhufays. algeria waa dalka ugu weyn qaaradda afrika. sidoo kale 80% algeria dhulkooda waa wada saxara. andora ma lahan eeraboor, sidaa daraaddeed qaabka keliya ee dalkan lagu tegi karo waa adigoo isticmaalo baabuur. angola waxay ka mid tahay dalalka adduunka ugu badan xagga dhimashada ilmaha yar. antigua and barbuda waa waddanka ugu yar tirada dadka isdila, waana dalka keliya aysan wax ka dhicin isdil ah sannadii 2015. argentina waa dalka ugu cunista badan hilibka lo'da. waxay cunaan isku celcelis 6 kilogaram qofkiiba sannad walba. armenia waxay haystaan rikoorka waddada baabuurada korontada ku shaqeeya ee hawada mara, waana 5 kilomitir dhirir ahaan. australia waa dalka ugu badan halista ay geystaan libax-badeedka. 259 oo dhimasho lala xiriirinaya libax-badeedka ayaa ka dhacay dalkan. austria waa meesha ugu badan ee shaqaalaha la siiyo maalmaha fasaxa. sannadkii waxay helaan dadka ka shaqeeya dalkan 43 maalmood. azerbaijan waa dalka ugu badan adduunka fulkaanada dhiiqada wadato. kalmar fulkaanayaasha tuura dhiiqada waxaa laga helaa dalkan. bahamas ma lahan canshuurta dakhliga ee qofka. sidoo kale baxriin iyaguna ma lahan canshuurta dakhliga. bangaladesh waa dalka ugu badan webiyada adduunka. 700 oo webi ayaa ku taala dalkan. belarus waa halka ugu cabista badan khamriga. isku celcelis ahaan 17 litir oo alkolo ayuu cabaa qofkii sannad walbo. belgium waxay ku jirtaa dalalka ugu badan canshuurta shakhsigu bixiyo. butaan 80% muwaadiniintooda waxay ka qayb qaataan wax soo saarka beeraha. bolivia waxaa ku yaala dhul 10,000 oo kilomitir oo square oo wada cusbo ah. bosnia and herzegovina waa dalka 10aad ee ugu cabista badan kafeyga. botswana waa dalka ugu soo saarista badan dhaymanka adduunka. brazil waa waddanka qaaday koobka ugu badan ee tartanka ciyaaraha adduunka. waxay haystaan 5 koob oo kubadda cagta. dalka brunei waa dal qani ah, wax dayn ku leh ma jirto. bulgaria waa dalka ugu soo saarista badan saliidda roos loo yaqaano ee laga helo barfuumada. burundi waxay ku jirtaa dalalka ugu hooseeya xagga dhaqaalaha adduunka. halkii sano 320 qofkiiba. cambodia 95% waxay haystaan diinta buddhism. cameroon waa dalka ugu horreeyey oo afrikaan ah ee gaaro wareegga afaraad ee koobka adduunka. kanada waa dalka ugu aqoonta badan adduunka. 56% muwaadiniintooda waxay haystaan ugu yaraan shahaadooyin dugsi sare. central african republic waa dalka ugu hooseeya kaalinta qiimaynta nolosha farxadda adduunka.